بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن إذا لهانتين بداوديال meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada kuna soo durka war wixii geeyga Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka naga soo gaaray oo ka daawataan telefishinka madaxa bannaan ee Percent TV xarunta guud ee magaalada Hargeysa warkana caawa waxa diyaar u ah barnaamij ka noqdo anigoo Sadaan Xuseen qodobada habeennimadan caawad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta deeq gaari ku wareejisay xarunta ay ku leedahay gobolka Gabiley qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in ciidamo loo diray wadanka Burundi daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door koron la habeennimadan caawa imikii haatan ku soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale faahfaahsan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa loo dhacay barnaamijkeeda ololaha doorashooyinka sidoo faahfaahinta warkaasi noogu soo diray wariyaheena Ridwaan Xuseen Yuusuf ololaha doorashada madaxweynenimada ee Hillary Clinton ayaa loo dhacay taasoo qayb ka ah weerar weyn oo dhanka internet oo lagu hayo xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Saraakiil Mareykan ah ayaa aaminsan in weerarka dhanka internetka ay ka dambeeyeen dad u shaqeeya dawladda Ruushka waxayna meesha ka saar waxa ay ugu yeedhay sunta ka soo butaacaysa Washington ee lagu eedeynayo dalka Ruushka. ololaha Clinton ayaa lagu sheegay in barnaamijka qiimeynta macluumaadka jimcihii la baahiyay in la xaday. waaxda dambi baarista dalka Mareykanka ee FBI-da ayaa sheegtay inay baarayaan cidii ka dambeysay xatooyinkan iyo waliba macluumaadkan la dhacay. sidoo kale emailo ayaa laga xaday gudida qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayaa la baahiyay toddobaadkii hore intii uu socday shirweynihii xisbigaas. emailadaasi ayaa waxay muujinayaan in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadigu in ay u janjeeraan dhanka Hillary Clinton oo aysan dhexdhexaad ka ahayn tartankii hore ay la soo gashay Bernie Sanders. arrintan ayaa waxay horseeday in iscasisho gabadhii gudoomiyaha ka ahayd xisbiga dimuqraadiga kadib markii kulankii lagaga hadlay arrintan isla markaasina cabasho xoogan loo jeediyay gudoomiyaha. Ridwaan Xuseen Yuusuf, Percent TV, Hargeysa. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa afgambiga dhicisoobay ku eedeeyay janan Mareykan oo kan wariyayna Iftaax Maxamed Cabdi oo inoo qaada dhiga. madaxweyne Erdogan dalka Turkiga ayaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalka Mareykanka ku eedeeyay inuu la jiro dadkii isku dayay inay dawladda afgambiyaan 2 toddobaad ka hor. hadalada madaxweyne Erdogan waxay si toos ah ugu waajahan yihiin General Joseph Votel oo ah sarkaalka ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe. General Joseph ayaa sheegay in shaqo keeriyada ciidamada Turkiga ee looga shakisan yahay afgambigii dhicisoobay ay wax u dhimi karto wada shaqaynta militariga. hadal uu madaxweyne Erdogan ka jeediyay magaalada Ankara waxa uu sheegay in dalalka cambaareen iyo howlgalka maamulkiisa looga baahan yahay inay mahadiyaan Turkiga sida uu uga hortagay afgambigii dhicisoobay. waxaanu yiri sida tan: Dünya sen benim ülkemdeki halkii aad odhan lahaydeen waad mahadsantihiin dadkaygii ka hortagay afgambigii dhicisoobay aad taageerteen kuwii isku dayay afgambiga. dambiiluhu dalkiina ayuu joogaa haddana waxaad leedihiin waxaan ka walaacsanahay mustaqbalkiina. waa maxay waxay ka walaacsan yihiin ragga? ma waxay ka baqanayaan inay sare u kacdo kuwa la xirxirayo? laakiin qofkii dambi lagu helo waa la xirayaa. waxaa laga yaabaa in eedeyntan uu Erdogan u soo jeediyay generaalkan sare ee Mareykanka ay wax u dhinto diblomaasiyadda labada dal waa Turkiga iyo Mareykanka. waa Iftaax Maxamed Cabdi, Percent TV, Hargeysa. qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in ciidamo loo diray wadanka Burundi. hay dagaalada ka socda wadanka Burundi ayaa marba ka dambaysa sii kordhaya. in ka badan 400 oo ruux ayaa ku dhintay tan iyo markii madaxweyne Pierre uu sheegay inuu isku sharaxayo mar saddexaad jagada madaxnimo ee wadanka Burundi. wararka ayaa sheegay in 200 oo kun oo qof ay ka carareen guryahooda. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi ballaaran ay yeesheen ayaa aqbalay qaraar uu dhawaan soo jeediyay wadanka Faransiiska kaasoo ku dalbanayay in ilaa 228 askari boolis caalamiya la geeyo wadankaasi Burundi. golaha ammaanka ayaa aqbalay in ciidamo la geeyo wadankaasi ay ciidamadaasi isku dayaan inay wax ka qabtaan xasuuqa iyo dhibaatooyinka ka jira wadankaasi. dalka Burundi ayaa la sheegay inay markii ugu horeeyay ku gacan siiyeen golaha ammaanka isla markaana ayna ogolaan doodin wax ka badan 50 askari in la geeyo wadankooda. daawadayaal intaas waxaa nooga eg war wixii geeyga Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka naga soo gaadhay waad ka daawanayseen telefishinka madaxa bannaan ee Percent TV xarunta guud ee magaalada Hargeysa. intaan warkan xiga ku kulmi doono waa anigoo Sadaan Xuseen iyo dhammaan intii kala qayb qaatay soo tabinta warkii isku dabaridkooda leh amaana Allah.